dalkeenaad hiil u tahay markadna hogaamisa dalkeenaad hiil u tahay markadna hogaamisa shacbigu hurdadii ladee halyeey weliga ha dhicin halyeey weliga ha dhicin dalkeenaad hiil u tahay markadna hogaamisa dalkeenaad hiil u tahay markadna hogaamisa shacbigu hurdadii ladee halyeey weliga ha dhicin halyeey weliga ha dhicin lafta gareen hubashii qofur galbeed hankoodii hirgal shoorumeeyey hirgal shoorumeeyey hirgal shoorumeeyey hirgal shoorumeeyey lafta gareen hubashii qofur galbeed hankoodii hirgal shoorumeeyey hirgal shoorumeeyey hirgal shoorumeeyey hirgal shoorumeeyey hubalwanku ilownay hubalwanku anweynay hubal madaxweynihiyo hubaladiga u hilshay bulshada xilkaad hayso aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran iyo sida quruxda badan oo sharafta iyo mas'uuliyadda ku jirta oo aad noogu soo dhoweyseen caasimadda muqdisho runtii socodka annaga iyo ujeedkaan u nimid waxaa sheegay wasiirka waxaan u nimid inaan ka qayb galno shirkiga NCC-ga waxaan ku nimid martiqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu noo soo diray in shirkii saddexaad fadhigiisii saddexaad NCC-ga uu noo furmaayo ajendayaalkii horey u jirayna la dhammaystirayo ayadoo dalka uu ku jiro shaqooyin muhiim ah iyo howlo cusub oo aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed badan u ah la wado sidii loo sii dardargelin lahaa howlaha dawladdana loo sii adkeyn lahaa wada shaqaynta iyo isla socodka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeedna looga wada shaqayn lahaa ayuu yahay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa in guulaha iyo horumarka dawladda federaalka ay bilowday oo ay ku hogaaminayso dadka Soomaaliyeed inuu suurto galo annagana aan u noqono garbihii iyo baalashii suurtagelin lahaa dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay midnimadaas iyo wadajirka ay ka shaqeeyaan aad u mahadsantiin wasiir sida aad noogu soo dhoweyseen gurigaanagii waana kaga mahad celinaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.